wacan wanaagsan dhageystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkani waa warbaahinteena Nago Media warkana waxa idiin soo tabanaya anigoo wariye Kaafi Qoyste iyo saaxiibkii Cabdullaahi Hiirad ku soo dhawaada qodobada wararkeena caawa waa 17 bisha Afraad waa habeenimo Jimcaha soo galayso Khaatimo oo magac cusub oo aqoonsatay Soomaaliland kadib booqashadii Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre fiqi oo dalbaday in liiska argagixisada lagu daro siyaasiga caanka ee reer Soomaaliland ku soo dhawaada warkeena oo fid maamulka cusub ee SSC Khaatimo ayaa Soomaaliland u aqoonsaday magac cusub kadib booqashadii Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku tagay Laascaano kaasi oo ahaa kooxda gooni-goosadka waqooyi galbeed magacan oo la isugu raacay in loo aqoonsado Soomaaliland kadib shirkii golaha wada tashiga SSC Khaatimo ee ka dhacay magaalada Laascaano oo haatan ah xarunta maamulka SSC Khaatimo shirkan uu gudoomiyaha maamulka SSC Khaatimo Cabdiqaadir Axmed Awcali ayaa lagu bogaadiyay safarkii taariikhiga ah ee uu ku tagay Ra'iisul Wasaare Xamse halkaasi oo ay SSC Khaatimo ku aqoonsadeen dowladda federaalka Soomaaliya golahan ayaa sidoo kale bogaadiyay go'aankaasi iyo safarka taariikhiga ah ee wafdiga ballaaran ay ku yimaadeen deegaankaasi dhanka kale shirkan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga difaaca midnimada iyo siyaasadda sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay maamulka SSC Khaatimo ugu dambeyntii golahan ayaa go'aamiyay in Soomaaliland ay haatan ka taliso gobolka waqooyi galbeed ee Soomaaliya oo loo aqoonsaday kooxda gooni-goosadka waqooyi galbeed tan iyo markii ay lumisay Soomaaliland deegaanada ay haatan SSC gacanta ku hayso loona aqoonsaday maamul goboleed rasmi ah waxa ayna labada dhinac hawada isu marinayaan hadallo kulul ayagoo laga cabsi qabo in dhinacyada kale mar kale uu dagaal ka dhex qarxo fiqi oo dalbaday in liiska argagixisada lagu daro siyaasiga caanka ee reer Soomaaliland warkan waxa inoo dhameystiraya wariye Cabdullaahi Hiirad wariye Cabdullaahi ku soo dhaw waan dhawahay wariye Kaafi Qoyste wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dalbaday in liiska argagixisada la geliyo siyaasiga caanka ah ee reer Soomaaliland Faysal Cali Waraabe oo shalay si aan gabasho lahayn u taageeray shabaab sheegana inay dhawaan qabsan doonaan caasimadda dalka Fiqi oo ka falceliyay qoraal uu shalay soo saaray Waraabe kaas oo uu sheegay in kooxdaasi ay magaalada Muqdisho qabsan doonaan bisha May ilaa Juun sanadka 2025 taa ayuu cuskada fashilka dawladeed oo ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirku waxa uu garaad xumo ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray Faysal Cali Waraabe waxaana uu ku eedeeyay inuu si toos ah ugu biiray kooxda Al-Shabaab oo haatan dagaal adag kula jirta geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa garaad xumo hadalka uu ku baaqay hore ayay caruurtiisa ugu biirtay kooxda ISIS haddana isagii ayaa kooxda argagixisada Al-Shabaab si toos ah ugu biiray sida kuwii ka horeeyay ay ugu biireen ayuu yiri wasiir Fiqi oo u jawaabayay Faysal Cali Waraabe waxa uu intaas ku daray Waraabe waa in la geliyaa liiska argagixisada lana soo taagaa maxkamad arrimahan ayaa imanaya xilli uu meel xasaasi ah marayo dagaalka kooxda Al-Shabaab isla markaana maalmihii dambe la arkayay deegaano laga xoreeyay kooxda oo haddana ay weerar rogaal celis ah ku weerarayaan inkastoo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay muujisay ka go'naansho guluf ka socda haddana waxa jira gaabis iyo habacsanaan ay tahay in si degdeg ah wax looga qabto si guul wax ku ool ah looga gaaro dagaalka shabaab ay nooga bixeen haliyo nafto u horay xoreynta dalkeena ku xirnow oo ku soo biir barteena Facebook ee Nago Media warbaahin maxalli ah kana faaloota arrimaha gobolka